muhiimadda u leedahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Mareykanka oo ku sugan tahay bulshada ku dhaqan gudoomiye ka waran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روح السلام يا دمان والله هيك الصوماليات ميلو بيجوجان. sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta aan ka mid noqdo dadka la wareysanayo ee telefishinka qaranka wareysanayo anigoo ku soo noqonaya markaa su'aasha aad i weydiisay ee ahayd deenta la naga cafinayo haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed runtii dadka ku dhaqan Mareykanka waa arrin aad u farxad leh oo aan aad u soo dhaweynayno sababtoo waxay la mid tahay in qof kasta oo shakhsi oo Soomaaliyeed deenta laga cafiyay waayo deenta dadka ama dalka lagu leeyahay waa deen inagoo dhan lagu leeyahay naga wada dhaxayso oo qofka kale uu ka dambeeyo oo deentaas ay haysato marka maadaama deentaasna laga cafiyo waa wax aad u weyn oo aan soo dhaweynayno gudaha iyo dibaddaba wax aad weyn noogu tiri doono oo aan waxyaabo fara badan oo markaa deentaasi oo aan ku gudulayn markay noo dhaafaan oo aan ku qabsan karno oo horumarna aan ku gaari karno waana wax lagu farxo runtii fursadaha imaan kara deenta laga cafiyo Soomaaliya gudoomiye Cali maxaa ka mid noqon kara والله waxaa ka mid noqon kara in dad badan oo ay ku dhiiradaan in maartay ay maalgashi dhab ay ku sameeyaan wadankooda dadkaas oo laga yaabo hadda xoogaa inay ka dhowr sugayaan ama xoogaa ka yar gaabsanayaan dadkaas waxay u noqon doontaa dhiirigelin aad u weyn waxaa jira dad badan oo hadda diyaar u inay dalka ay maalgashadaan oo waxyaabo fara badan projectyo ama mashruucyo fara badan ay ka qabsadaan marka dhaafidda deenta waxay aad u dhiirigelinaysaa ma aha Mareykan kaliya xataa qurbi joogta wadamada kala joogay aad noogu in waddanka aan ku soo laabano projectyo ama mashruucyo waxtar leh oo dadweynaha wax ku taray inaan ku maalgashadaan ama aan ka qabano insha Allah. Gudoomiyaha Mareykanka oo ku sugan tahay waxaa jooga madaxdii qaranka oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda halkaasi oo lagu qabtay kulan dabcan Soomaaliya ay soo agaasintay oo amniga looga hadlayay guulaha la gaaray oo ay ka mid tahay deenta oo maanta lagu dhawaaqay in dalkeen laga cafiyay cunaqabateyntii hubka oo Soomaaliya laga qaaday ururka iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga Afrika waan ku biirnay guulaha waaweyn ee la gaaray ma u tahay diilo dadka qurbaha jooga in qudhooda ay kaalin ka qayb qaataan horumarka socda oo ay qarankooda iyo madaxda ay taageeraan aad iyo aad maxaa yeelay waddankaagii mar waa waddankaagii nowhere is like home ay dhahaan dadka oo meel waddankaagii la mid maaha annaga qalbigeeni wuxuu jiraa waddanka inta jismigeena unbaa jooga maahayna qalbigeeni wuxuu jiraa waddanka marka horumarka aan maanta ku tilaabsano waa horumar aad iyo aad u balaaran oo la sugayay oo macnaha aad aan ugu faraxnay inaan horumarkaas gaarno aan ku biirno qolada East Africa in hubkii la inoo fasaxo arrintaas oo dhan waxay aad u dhiirigelinaysaa farxadna ku abuuraysaa iyo hedidiilo dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxayna ku abuuraysaa naxdin iyo mufaajac ama wax ayna filaynin dadka cadawgeena ay aan ogolayn horumarka dalka Soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn ay haysata dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama bulshada dhalinyarada ay ka yihiin ilaa iyo 70% la gaarsiiyo in ay haystaan caqabado xagga shaqo la'aanta ah diin cafintan ma abuuri kartaa in kumanaan dhalinyaro ah ee xafiisyada kala duwan ee hay'adaha dawladda ka shaqeeyaan shirkadaha gaarka leh ka shaqeeyaan inay dhacdo fursado shaqo abuur ah 2024ka diin cafintan ma ka dhalan kartaa waa arrin aad iyo aad muhiim ah waana ku yeelan kartaa waayo markii deen cafinta ay timaado waxaa imaanaysa in maalgashi badan uu yimaado marka maalgashi badan uu yimaadana waxaa imaanaya mashruucyo fara badan marka mashruucyada ay bataanna waxaa loo baahan yahay shaqaale fara badan oo waxaa meesha fursad ka helayo dadkii maanta shaqo la'aanta ama dhalinyartii maanta jaamacadaha ka soo baxay kuwa dugsiyada ka soo baxay kuwii markaa fursado shaqo aanan helin ayaa waxaa marka nasiib ay u yeelanayaan in shaqo abuur ay u noqoto oo shaqo fara badan ay helaan marka deenta la cafinayo waa mid aad iyo aad muhiim noogu ah haddaan nahay dadweynaha Soomaaliyeed siiba dhalinyarta Soomaaliyeed aad bay muhiim ugu tahay gudoomiye waxa tahay gudoomiyaha community-ga la yiraahdo Somali Organ bal community-gaasi waxyaabaha uu u qabto shacabka Soomaaliyeed bulshada Mareykanka maadaama ay Mareykanka ka jiraan community kala duwan oo dadku u adeega si gaar ah community-gaaga dadku muxuu ka caawiyaa runtii horta waa arrin jirta in Soomaalida ay meel walba ay joogaan ay community fara badan ay leeyihiin siiba gobolka aan joogno xitaa kaliya ma aha Somali Organ Service Center waxaa jira community kale fara badan oo iyagana Soomaalida wax u qabta laakiin community-geena waxa inaga nagu abuuray oo nagu dhaliyay in aan community-gan ku soo ziyaadino community-da kale ay jira markaan aragnay baahida weyn ee dadkeena ay qabaan in aysan kaafin karayn community-da jira oo kaliya sidaas dadka hal abuur waxaan la nimid in dadka aan xog qabano sida dadka senior-ka ah waayo dadkeena senior-ka ah ama waayeelka ah markay ay joogeen maxaa la wadankii waxa waa la ixtiraami jiray
oo markii xitaa arrin ay timaado waxaa loo tegi jiray dadka da'da ama geesus ama kurshiraan ama iyaga marka arrinta la saaran jiray laakiin markay waddankan yimaadeen dadka seniorka ahaa waxay u dhammaadeen in guryihii ay fadhiyaan dhiikar uu ku dhaco sokor ay ku dhacdo wax danaynayn ixtiraam aysan jirin sidaas darteed waxaan u abuurnay barnaamij la yidhahdo senior activities oo dadka senior in bulshada dib loogu soo celiyo maxaa la dhahaa wixii ay lahaayeen ama karaamadii ay lahaayeen dib loogu soo celiyo loo sameeyo maxaa barnaamij la yidhahdo yoga oo ay bishii 2 mar 3 mar ay ku aalminteeyaan meel ay isugu yimaadaan ay ku shaacabaan isku waraystaan ixtiraamkii bulshada xagga seniorkan uu sidii kusoo noqdo taasi waa midda kale waxaan u qabanaa hooyooyinka single momiska ah oo markaa masaakiinta oo looga tagay ilmihii oo raggii qaarkood ay isaga tageen hooyooyinkaas waxay u badan yihiin dad aan saamu tacliimin ahayn marka hooyooyinka waxaan u furnay xirfado sida harqaantolidda oo kale farsamooyinka gacanta oo kale oo aan ku tababarnaa si marka nafsadooda ay u maareeyaan ay u maamulaan ilmahoodana sidoo kale waxaan barnaa hooyooyinkaas wax la yidhahda digital literacy oo ah sida loo isticmaalo media ama internetka loo isticmaalo waayo waxaa jirta waddankan dhalinyarta aad bay maaragtay ay u fududaadaan markay yimaadaan waxa qaribana badanaa waxay u badan yihiin meediyihii hooyooyinkina badanaa ma yaqaanin meediyihii oo cunugii wuxuu isticmaalaya xataa lama socon karaan laakiin marka tababaro noocaas aan siino waxaa imaanaysa in hooyadii ay fahamto cunug wuxuu isticmaalayo ayna la socoto ay kontrolsho markaa ayna faa'iido u leedahay dhalinyarta laftirkooda waxaan siinaa barnaamij la yidhaahdo gang prevention ama drug addiction prevention oo la yidhaahdo oo ay ka hortagaya maaragtay sida ay gang ama ugu biiri lahaayeen ama daroogada ay u isticmaali lahaayeen dhalinyartaas waxaan u furnaa barnaamijyaan u furnaa sida sportiga basketballka footballka iyo training job trainings tababaro oo waxaa la siiyaa oo ay ku shaqaysan karaan xirfado ay ku shaqaysan karaan qaar waxaa jira iskuulka ka soo tegey waxaa la baraa sida taraagada loo wado waxaa la siiyaa maxaa lessons la siiyaa waxaana la siiyaa job training oo waxaa loo diraa PCC ama Portland Community College marka dhalinyarada sidaasaa lagu dhiirigeliyaa waxaan xitaa la baraa wax la yidhahdo financial literacy oo ah sida ay u kaydsan lahaayeen ama ay u dhaqaalaysan lahaayeen waxyaabaha ay shaqaysaan inta ay beerdarayn lahaayeen ama waxyaabo fara badan ama waxyaabo qaldan ay ku isticmaali lahaayeen marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha marka aan u qabano bulshadeena saddex gudoomiye cali community-ga gobolka aad joogtaan ee Mareykanka aad u badan yihiin community adiga hogaamiso waxyaabaha ay ku dhigay inaad aasaan oo aad sameysaan maxaa kamid ah waxyaabaha nagu dhaliya community-ga inaan aasaasno aan waxaa kamid ah sidaan hore kugu sheegayba kor u qaadida bulshada Soomaaliyeed isku keenida bulshada Soomaaliyeed inaan isku xirno inta community ay jirto aan ka dhigno under one umbrella community isku yimaado haddana alxamdulillah ilaa hadda waa ku guulaysanay oo waxaan isu keennay ilaa 10 community oo jira oo aan ka wada shaqeyno waqtigan xaadirka sida aan uga hortagi lahayn waxyaabaha dhibaatada u keeni kara dhalinyarteena iyo isku xirka xiriirka ka dhaxeeya waalidiinta iyo dhalinyarta waxaad moodaa in xoogaa xiriirada ka dhaxeeya waalidiintii iyo dhalinyarada ay xoogaa isfahmaynin oo ilmihii ay leeyihiin waalidka waxa ma oga wuxuu ka yimid afrika ka yimid oo iyaga intay ku barbaareen laakiin arrintii waxaa la rabaa in marka arrintii la isku keeno waalidiintii ilmihii la isfahamsiiyo si marka arrintii ay hore ugu socoto anaga move forward aan u noqono intii gudoomiye cali fariintaada dadkii ka daawanaya ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed fariintaada ee ku aadan dabcan maadaama aad kamid tahay qurba joogta Mareykanka ku nool maanta la sugayo guusha weyn ee cafinta fariinta dadku daawanaya ee Soomaaliyeed kuwa qurbaha jooga kuwa dalka jooga si guulaha socda loo wada qayb qaato fariinta aad dirayso gudoomiye maxay tahay wallahi fariinta ugu horeysa waxay tahay horta isku duubni iyo in la ilo wax la yiraahdo qabiil ilaahay waa noo sheegay qabiilka inaan isku garano kaliya waa inaan maaragtay aan isku riixna ma sidaas darteed haddaan anagu noqono ul iyo diirkeeda oo qofka walaalka ee Soomaaliyeed ee kan qabiga uu taageero meel uu joogo haddii aniga aan malgashi sameeyo kan daciifka ah meelaha jira haddaan shaqo siiyo inuu walaalihii ay is ogaadaan meel walba ay joogaan kuwa dibadda joogana ay helaan ay sameeyaan xitaa mashruucyo ay ku maaligelin karaan in qof walba oo dibadda joogo hadduu $1 maanta meel uu dhigo oo ay intay dad wakiishaan ay waddanka uga sameeyaan mashruuco waxay sameyn karaan lagu taageeray dadka baahan ee joogo dalka gudihiisa waana arrin very very important oo muhiim ah waayo dadka Soomaaliyeed waa dad qalbi nadiif ah waa dad fiican laakiin waxaad moodaa marka qaarkood inay xoogaa jarta ka xumaanayso marka sidaas darteed waxaan ku dhiirigelin lahaa aan kula talin lahaa haddii dibadda ay joogaan haddii dadka joogaanba in ay marka ugu horeyso ay Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii iyo muslimnimadii inta ay kaashadaan ilaahayna ay kaashadaan ay isku duubnaadaan ay meel walba ay joogaan ay sameeyaan barnaamij ururin contribution ay sameeyaan oo dad wakiil ah oo nadiif ah wixii loo dhiibo mashruucyo la yiraahdo mashruucyada qurba joogta ay sameeyaan oo waddanka laga aasaaso kuwaasoo kaalmeyn kara dadka masaakiinta ee waddanka jooga war $1 markaan aniga dhiibo saaxiibka aan ka qabto anaga waxba naga dhibi mayso laakiin dadka dibadda gudaha jooga wax weyn ay u qabanaysaa
marka dadka walaalahay waxaan kula talinayaa inaan istaageerno sidaan u nirib heesta Soomaaliya toosoo isku tiirsade hadba kiina taageerada weligeeda marka heestaas inaan ku tiirsanaano istaageerno ayaan dadkeena meel walba ay joogaan aan ku dhiirigelinaya insha Allah ayuu masan yahay kaasi wuxuu ahaa aasaasaha ahna gudoomiyaha Somali Organ Central Service Ali Maxamed Ibrahim isagoo ku jira iskaabka dalka Mareykanka ayuu waramayay dinacafinta Soomaaliya waxay dabcan geediga dinacafinta uu soo bilowday sanadkii 2012 waxaana maanta la guranayaa miraha oo ah guusha la gaaray taasi oo ka dhigan in dabcan muddo dheer laga shaqeynayay sidii loo soo gaari lahaa guushan waxaana muuqaalkan aad kaga bogateen muhiimadda maanta ay u leedahay qarankeena guusha madaxda ay soo hooyeen anigu waxaan ahay Cabdirashiid Maxamuud oo soo jeedinayay muuqaalkan waxaan runtiina almad saaxiibada nagala qayb qaatay aad u maasantihiin nabadgelyo